الرحمن الرحيم إخوتي إلهي سبحانه وتعالى توفيق ده النوافجيو اعتسام بالحقنا إلهي سبحانه وتعالى هنقو إرزاقه انت اسكدب إلهي سبحانه وتعالى توفيق ده الدنيا يتن آخرة إلهي سبحانه وتعالى تبتد الله هنقو توسيه ولا ليالو meesha waxaan hadda sugu nimid mabda meesha loo yimid qadadaasna lagu soo sharfay baan ku nimid laakiin iclaan iyo waxaa jira magacna wada keenay oo la yiraahdo hoorsama ama reer magacaas ayaanu wada hugsannahay oo meeshaana keenay nin kastana magaca asaga mas'uul buu ka yahay magaca qofka bini'aadan qof kasta oo bini'aadan oo ku abtirsanaya magaca wuu u baahan yahay inuu sharaftiisa ilaaliyo mas'uul buuna ka yahay rasuulka kaleey salaatu wasalaam waxa ka sugan kafa bil mar'i ithman qofka bini'aadanka dambi waxa ugu filan an yudayi'a bima ya'ul waxa asaga u baahan yahay waxa asaga u baahan iyo wuxuu asaga u baahan yahay labada shayba in uu dayaco qofka bini'aadanka intaas ism ugu filan ilaahay subxaanahu wa ta'aala dad wanaagsan oo xaakimkooda iyo maxkuumkoodaba dad wanaagsan ilaahay subxaanahu wa ta'aala naga dhigo waxa sugan athar Abdulaziz nin la yiraahdo oo rag umarada ahay laga soo wariyo oo ah kama takunu tuwallu sida adinka aad tihiin baa laga dhigaa dadka mas'uuliyiintiina ajiib marka ilaahay subxaanahu wa ta'aala aynu weydiisana in dad wanaagsan ilaahay naga dhigo si mas'uuliyiintanadana dad wanaagsan ilaahay ugu dhigo yaani aatharkaas waxa la qaadanaya maca dalika Ali ibn Abi Talib waxa la weydiiyay xilliga uu khilaafada hayay Ali ibn Abi Talib dadkii xilliga rasuulku uu jooga saxaabadii iyo rasuulku way is adeecsanaayeen dadkan isdiiday dhiigan daadanay khilaafaadkan iyo fitkan maxay tahay buu dadka haday noqdaan buu yiri sida asxaabadii dadka mas'uuliyiinteena waxay noqonayaan sida rasuulka kaleey salaatu wasalaam ajiib marka waa in aynu noqono dad wanaagsan sida u timaada sababta ah in dad wanaagsan ilaahay noogu dhiibo masiirkanaga inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala masiirkanaga dad wanaagsan noogu dhiibo intaas waxaan ku gabagabeynaa erayar waxa hadda jira isriix tartan ah laakiin nin kastaba dhagta ku qaato hawla badno wili waa hogadii buu yirsameen nin kasto hadaf badano hadal badano hoorsamo waa hoorsamo assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin salaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin waxa weeye aqyaaray aniga maanta idin yeeray muddo badanna waa ismoogeyn waxaan kugu mahad celinayaa ajiibka aad soo ajiibteen yeeristeedii aan idin yeeray inaad ii timaadaan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay waxaan kugu yeeray arrimaha aan hadda soo sheegi doono ujeedkayga maxsuumkaana wuxuu ahaa inaan howraarsamo wixii Muqdisho joogo aan is aragno dabadeedna wixii afkaartayda aan u sheego waxa weeye horta ujeedkan gooshan u dhigay wuxuu ahaa howraarsamo Muqdisho dadka howraarsamo oo shanta qaaradood joogo hadda noolaa waxaa wada gaaray inayna heshiis ahayn oo ay col yihiin haddana Muqdisho aan joognaa waa isdhex joognaa habeenii maalinna waa iswacnaa waa isalaanaa waa isla soconnaa haddana ma garanaysaa
adduunkii baa waxaa noo galay dad col ah oo aan isduugaynin oo kala dhintay oo tala ku dhacday inaan nahay taa iyada waxay igu noqotay murug weyn been idiima sheegaayo aad iyo aad waa murgaystay mujtamaca aan ku dhex noolna dadka galgalka tirada badan ku leh oo aad isu yaqaanaan ku jiraa maadaama doorasho haddana la soo galay inta hore doorashada aan la gelin qayli badan ma oolin marka hadda doorashada la soo galay yaa haddana waxaa timid dadkii howrarsamay waa kala dhinteenoo inkaaraa ku dhacdayoo ma garanaysaa duurkay ku kala jiraanoo waa iscaynhayaanoo wax noocaas dhegtayda wax badan ku soo dhacday runtii arrintii iida ahayd ayaa waxaan go'aansaday inaan howrarsamo isugu yeero fikraddaydan aan u sheega maanta wixii ka bilowda fikradda aniga qabo inaan u sheego kow marka u horrayso intaan meesha fadhida iyo inta maqan qof howrarsamo sheegto oo aniga aadan ahaantayda aan wax u qabo ma jiraan markhaatina ka ahaado wax ay iga sameeyeenna ma jirto wax iga hadleeyeenna ma jirto gurigkayga igama ay qashqashin carruurtayda ma ay laaynin xoolo igama ayna dhicin waxba igama ay xumaynin waxaa weeye arrintaas iyada ah inaan u sheego ayaan horta go'aansaday tan xigto inaan istaago oo inta meesha joogto aan gacan qaado oo inaan nimayow cafi baad iga tihiin aan idhaahdo yaan rabaa tan xigtana waxaan rabaa in adinka laftiinna aad anigana si qofkii aan wax u geystay ama af aan ugu geysta adin ma ogi oo inta aan noolaa oo anta aqliga ahaa aadan iyo ninkaan kala qabta lama oran oo adin xaggeed saasaan ka ah af wixii ahaa in cafiskii liya cafiyo dhammaantiin taasna waa midda xigto runtii waxaa weeye qallaaso tiro badan waa lagu jiraa qallaasada tiro badan lagu jiro adduunkaaba iska eba waa iska qallaaso waa doorasho waayo ninkii soo baxo ayaa ninka aniga ah midda kale ilaahay waxaan ka codsanaynaa ninka soo baxaya inuu noqdo nin ummadda wax u taro oo waddanka wax u taro oo dalkiisa wax u taro oo dadkiisa wax u taro oo ummaddiisa wax u taro oo ummadda aan u kala eexanin oo daacad ah inuu ilaahay ka dhigo inuu ilaahay ka dhaco taas iyadana waxaan rabaa inaad horta faataxada ku martaan waxsan inuu ilaahay nagu hagaajiyo saa wax walbaa dhici kare waxaa weeye marka dadka doorashada jooga oo hadda doorashada ah nin baa nala fadhiya wax alla wixii doorasho galayna waa wacay waxaana ka soo qayb gala meesha ka soo qayb gala yaa intiisa soo sharaxda oo hal ii doorto yidhi ninkii doorasho raba waa saase ninkii hal ii doorto yidhi oo is soo sharaxay intaan hadda inta ku ognahay 5 nin weeye nin baa nagala jooga shantoodana qof aan wacan ma jirto waxaan ugu yeerayna waxay ahayd intaan hadda idin sheegay in nin walba la iscafiyo oo calooshaan waxa la iskugu qaban ayaan ugu yeeray ummaddaas meesha joogto ninka ilaahay uu qadiraa horta qaadanaya xilkan nin walba uu taas ku bishaaraysa farmaajo soo baxay wax lahay ma jiro waagi waa garanaysaa soo dhex taagan oo dhaarinaan waa aragnay mee goobta iideed ilaahay gooyay subhanahu wa ta'ala yaa ogaan doono
niyadiisa ninkay furantoo howrsamo wax u taraay oo xalaal ah yaa ilaahay noogu dhiibay xilka noogu dhiibay ma garata waxaan ugu mahad celinayaa ninka musharax oo nala joogo xurmada weyn oo howrasamo meesha magaalada Muqdisho dhaxdeeda marka ay howrasamaan rabaa hal yimaadaan ajiibku uu ajiibay oo igu yimid haddana uu yiri howrasamo gogashiisa wax baan ka qayb qaadanaya oo ka qayb qaato wana ka qayb qaato arintaas fiiriyaad ani waxba ma weydiin waxna bix ma dhig waa ka qayb qaato si libaax loogu qayb qaato waana ajiibay howrasamo inuu wajigooda fariisto oo la kulmo aad buu ugu mahadsan yahay waxa kale oo aan aad iyo aad ugu mahad celinayaa ugaaskii beesha howrasamo ee deegaanka Muqdisho inuu fadhiyo ku xigeenadooda inay fadhiyaan go'eedkaana lagu doortay hadda aan fadhino waxay qulubti gadaal ka gashay waxina cafiska waxaan ka weydiisanay kamid waxa way sidaas way aniga hadalkayga qayr baan ku ogahay waa hadalku waa idin furan yahay ilaahay go'ayna subhanahu wa ta'ala abshirtana hana waafajiyo inaad ii ogolaataan gacan qaadkaasna waa rabaa waana mahadsantihiin الحمد لله رب العالمين wadaadka nagu cadiyay wacdigiisii ilaahay nagu anfaco kuwii ka faa'iideystana Allah naga dhigo generaalka cafiskuna weydiisayna kuwii cafiy Allah ka dhigo anagana intaayna kala in badan baa wax isu qabtay inaan iscafino Allah kaso hadalkii meesha ka dhacay oo hadda aan iri aadano bal noo sheeg gogashaada macnaheedu waxay tahay uu noo sheegay alxamdulillah wax fiican aad sheegtay in la iscafiyo howrarsamo midoobo meel u wada jeesto aad bay u fiican tahay wixii fadqalalo wadana Allah soo hanuuniyo kulligeena walaalaanahay annaga isduugno marka waa aragteen iskool booliisi qabuuraha markaan tagno qof kalena lama socdo hebelow gal dhig iyo hebelow keen baan ku duugnaa waad ogtihiin ilaa 100 qof ka badan waan duugnay qof nala socdayna ma jirin waa anaga wax isduugayna hadii la isxir anaga soo deyneen iska daba ordaynay dib haduu dhaca anaga isu gurmanaynay dibka hadda jira boqolaal kale ka sii horeysay waan mataqaana xamar waan xalina xamara lagu dagaalsan yahay dad kale beenay sheegaysa laakiin waxa jira dana yar oo isdiidana jira iyagana maanta waaba loo fadhiyaa mar kalena in lagu celiyo ilaahan ka baryaa maadaama odagii magaaladan aan ahay ana intaas waa cafiyay laba nin ay ugu darneed labadina waa cafiyay aniga waa leeyahay ninkan run sheegin beena u kaayso Soomaha Ibrahim Isaaq oo saaxiibkay aabiis aan saaxiib ahayn ko iyo ninkii aawa ka jugayste labadina waa cafiyay inta gadaal ka soo riixaysana waa cafiyay shirkina waa noo furan yahay ijaabadana Allah na waafajiyo nimayow aan wada shaqeyn aan isla shaqeyn ummadeena aan qof u shaqeeyo ma jiro ummadda loo shaqeeyaa dad baa xiran dad baa hadda ku jira meel iskool booliisiya dad baa meel kale ku jiro xabsiga waa lagu jiraa sidaan u shaqeyn jirnaa loo shaqeeyo dadkana loo shaqeeyo ummadda doorashadaana ninka Ilaahay u calfaa qaadana kii noo soo baxa abshir Allah nooga dhigo abshir Allah nooga dhigo kii noo soo baxa saasaan leeyahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شركنا ونوفرية أنا هرت ساكن جوجش سان وما هيسنين أنا ساكن جوجش سان وما هيسنين هرت مدي يورمي وحما إسكت لنا وإلى جديا هذا بلايا ما تدعي دونتو أو واحد بوشيك دوران جرن كوحوط طوري مدفع أنا في لينين ما نكون هسين وحوي عفية نكير ولا ليس ويرتي أنا عفينه أنا هرت ولي جاي أنت النوراي هذا الكلام يوحي يا ولي جاي بينك مصاحن ما نعرفنا شخصيا هرينا وحبي يمسيلين أنت كلو وقعت ضينا
cafiya masaamax in la yiraahdo codsanayaa taas waa meeshaas laakiin waxaan rabaa inaan xamar yar waxa ishaaya la sheegayo sidoo odag u sheego kale annaga isma nacbin waad aragteen marka isduugayna san iskugu imaano waa annaga kaliya cid kale oo soo raacdo male xamar qalaasada ka jirto waa 3 nin iyo 2 nin oo soo raacdo wax kale oo dhanba 5 baaba qastaba wax shantaas waa kee jananka iyo xildhibaanka iyo duqaas way isdiidkooda hadday intaas heshiiyaan annaga dhan waa heshiinaynaba cid murmi karto oo kale male saddexdooda ha noo heshiiyeen hadday gacmaha is qabtaan cid hadli karto male aniga iyo hur kale oo sii shidnana dabka waa jirnaa waa joojin lahayn mogta marka may waa shidaynaa marka saddexdooda hadday heshiiyaan waxaan faataxada ku maran horta saddexdooda inay heshiiyaan hadday heshiiyaan cid kale murmayso male marka laakiin ayagii haddii ay murunsan yihiin ama ay wax isu qabaan dadkan wax bay isu qabaayaan been maaha qaar duqay raacaan qaar janankay raacaan qaar xildhibaankay raacaan saasaana bahasha loo kala taagnaana nin walba ninkiisu raaca iyo ninku faasiyi haddaad heshiisaan labadiinnu janankana xildhibaankana u tago hala heshiiyo adinkoo iswata aan aragno cid hadlaysa male taas anigana jananka hore in waxba yimiyaan haddana waa cafi dood kaloo hadda meesha sii jirtana male waxaan leeyahay dadka ninkii wax qabo saaroo kale gogol ha u dhigto ha soo sheegto dadka waxaa idiin sheegoo kale wallaahi oo bilaahi baan idiin sheegin dadka meeshaan fadhiya hadda aadan kaalmooyo hal yacafiyo leeyahay dadka meeshaan fadhiya waxaan kugu dhaarinayaa horta nuurgeela ugu calool nugul ma garata laakiin markii wax la yeelo soo noqonayni in la soo celiyo maahan duqaha la soo celiyo horta dad soo celiysaan marka waxaan leeyahay anigu waa dhibay been maaho maya markii ay saddexdooda murmaan mid walba meeshan ka soo gaaraan dabku dhijiyaani maxaa ayagaa heshiin waana maxaa uga dhiganaya marka waxaa weeye waxaan iin sheegayaa haddaad adinka heshiisaan annagana heshiisaan ninkaas wuxuu naga codsaday inaan cafinno ninka kaloo dhib qabo gogashaan ma aha ee gogol kale ha dhigtaan u imaanno waa ka baxay بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ربي أيام هذله ربي سوكا كان مكان كان ما هذا وصبنات أنت كده به لو ذات كان وذات خرابة أو وذات الشيء أو رحم وإلهي سبحانه وتعالى موقته هل ذرية ككريك لما أنت rabbi wuxuuna amrayaa mar haddii aan wada dhalannay oo aan nahay dad raxim ah wada dhashay in aan isxiriirinno isgacalsanno isgarabsanno xumaanta iskaga digno wanaagga isku taageerno khayrka is amarno munkarkana iska rabno waa wax ilaahay subxaana wa tacaala waajib inooga dhigay qof kaste oo intaa ka mid ah ama ha maqnaada ama ha joogo oo magacaa wato oo ilaahay waajib ugu dhigay weeye sidaa darteed generaalka wuu mahadsan yahay si gaar baan ugu mahad celinayaa gogoshow u fidiyey tolkii sida niyadda san ee hadalka quruxda badan ee kalsoonida iyo tolnimada iyo ehelnimada iyo walaalnimada ay ku dheehan tahay uu noo soo jeediyey boqolkiiba boqol baan kaga mahad celinayaa inkastoo anigoo shakhsiyan xuseen ibraahim rasuul baa la yidhaahdaa qof hawraarsamaa ama dalka ha jooga ama dibidda joogan wax u qabana uusan koomkaba ii joogin aniga shakhsiyaddayda hadalka generaalka uu yidhi waxaan rabaan hawraarsamo ka codsanayaa inta hadda ila joogtay iyo inta codkayga uu gaari doonaba hadalka uu generaalka in la qaato hawraarsamo iscafiyo hawraarsamo gacmaha isqabsado hawraarsamo midoobo waxa weeye dad ehel ah oo walaalo ah oo abti iyo awow iyo arxan usu wadana baan dhammaanteen waxyaabaha shaqaaqada ah sida hadda uu ka shaqeeyay Ibraahim Mugtay Nabadoon Ibraahim uu ka shanqariyay Ibraahim Isaaq iyo Nabadoon Geel waxyaabaha ay ka shanqariyeen oo shaqaaqada ah wax weyn oo dad ehel kala geeyo ma aha wax weyn oo dad ehel ay isu sheegaanna ma aha waxa la rabaa dadka inay xisaabtamaan oo wax waaweyn lagu xisaabtamo waxa la rabaa in la heshiiyo oo sidii wiil iyo waalidkiina la isla wada socdo awraarsama waxaan amrayaa aniga
oo fikirkayga iyo codkayga ah waxaan amrayaa inaan midowno walaalo ahaanno waanu nahay ilaahay baa naga dhigay subxaana wa tacaala waan midaysannahay oo haddaanan midaysnayn intuu generaalka gogol noo dhigo ma aanan imaannayn inaan midaysannahoon waxda waaxiddan nahay oo aanan kala maarmin oo laba indhood ma kala hurudda aanan nahay waxyaabaha daliilka ah oo na tusaya waxaa ka mid ah generaalkaa gogol fidiyey waxa weeyaan waa soo haleelna waa wada imaanna qof wax qaba iyo qof aan wax qabinba waa imaanna sidaa darteed hadalka generaalka uu soo joodiyey hadal adduun iyo aakharaba taabanaya wey qof kastoo damiir lehna wax ka beddelaya qof walbe ee hawraarsamo ama reer ah generaalka wuxuu codsaday anigu waxaan markhaati kahay dal iyo dibid inay noo martay muqdisho in bele ka jirto muqdisho bele kama jirto dadkii muqdisho hogaaminaya waa intaani in yaroo ka maqan waxaan codsanayaa aan soo joodinayaa oon hadalka ku soo afjarayaa in la iscafiyo walaala la ahaado walaalkay timajelac intuusan tegin kelmaddaas dhegayso ha iga tegin intuusan tegin waxaan ka codsanayaa dadka wuxuu sheegay nabadoonnada iyo generaalka in uu ka daba shaqayn jiray markay iyaga iskhilaafaan waxaan ka codsanayaa timajelac maanta laga bilaaba mubaayaco in la galo hawraarsamo uu galo mubaayacadaas ayada ah laba hawraarsame hadday isku dhacdo ninka kaloo u dhexeeya labada nin uusan isku dirin ragga uusan u kala dab qaadin ee islaax laga wada shaqeeya ee wanaagga laga wada shaqeeya haddaan aadan kaalmooyi aniga isku dhacno inuusan timajelac aadan kaalmooy la safanin anigana ila safanin oosan safayn noqonin ee mimbar noo dhexeeya uu noqdo anigii aadan kaalmooy isu kaana soo jiida qof kastoo hawraarsame saasaa laga rabaa oo mas-uul ah ilaahay baa mas-uuliyadda saaray midnimada saasay ku imaan kartaa tolnimadana saasay ku imaan kartaa ehelnimadana saasay ku imaan kartaa wada socodka iyo wada shaqayntana saasay ku imaan kartaa laakiin haddaan anigii iyo aadan markaan dagaalna kooxna ay aadan la safato kooxna aniga ila safato midnimo hawraarsamaa burburayso tolnimadaa burburayso magaca awowgeen waa baaba'aya ee hawraarsama amaan reer meeshuu ka baxayaa sidaa daraaddeed marka magacaas iyo sharafkeenna iyo cirdigeenna iyo karaamadeenna waxay kor ku noqon kartaa annagoo wadajir u soconno gacmo waxaa la yidhi wadajir bay wax ku gooyaan aan wada sinaanta ka shaqayno ragga meelaha dulduleelo wax ka arkaya ee hadda nala jooga iyo inta naga maqanna waxaan ugu baaqaynaa meelaha duleellada ah inayna waxba ka arkin ee wanaagga keliya aan wada xigsanno warka waa soo gebagabaynayaa ikhyaar badan baa iiga dambayn doonto nabadoonno badan baa joogo allah idin barakeeyo hawraarsamana allah ha guuleeyo meel kastoo joogna ilaah na ammaansado hawraarsamana waxaan u dardaarmaynaa midnimo buuxdo taam ah guul السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد waxaan aad ugu faraxsanahay gobashaan oo noo dhigay jenaraal aadan kaalmay gurigiisa uu noogu fidiyey maanta uu noogu dhawaaqay oo rag badan oo hawraarsamo ay isugu imaadeen waa uga mahad celinaynaa oo uu ku dalbaday at-tasaamux la yiraahdo in horta marka hore la cafiyo oo raggii muqdisho joogay hadday ahaayeen heer military iyo heer nabadoonba iyo heer odaytinimo iyo heer dhalinyaraba ahayd in la isku cafiyaa cafis oo naga dalbaday ani kulley ka shakhsiyan ahaan wixii aan u qabay generaalka waan cafiyey insha allahu tacaala wax aan u qabo maanta laga bilaabo ma lahan ragga kale oo dhalinyarada ah oo ama ila joogta ama odayaasha aan waxaan ka dalbanaya inay asaga iska cafiyaan oo labada dhinacba la iscafiyo lana wada shaqeeyo midnimada hawraarsamana laga wada taliyo insha allahu tacaala intaasaan aniga kusoo gebagabayn lahaa wasala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wacalayhi wasaxbihi wasalam بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد أما بعد dhammaan waxaan halkan ka salaamayaa inta gogosha ku jirto oo ugu horeeya nabadoonka beesha hawraarsama ee gobolka Banaadir uu ku xigo jarnaal aadan kaalmooy iyo wadaadka noo istiftaaxay maxamed sheekh cali jazakallahu khayra jazaa dhammaan iyo bulshaweynta hawraarsamo oo codadkan la dhigi doono maaragtay qadadka loo qaybin doono dhammaan waan salaamayaa qol kasta oo hawraarsamo inta ku jirto waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waa annagii oo beesha hawraarsama oo isugu imaanay in badan oo ka mid ah in badan ay naga maqanta isugu imaanay guriga jarnaal aadan kaalmooy shirkaas iyo xafladaas iyo martaqaadkaas ay ku saabsaneed at-tasaamux iscafin
in badan oo hadii dadkii madmadow waxa weeye Soomaalidu waxay ku mamaadaa adduunka waxa uu soo dhawaa ilkii carabna waa isqaniinaan waxa kale jiro dadka hadii ay wada dhasheen mise dhaliyo ay yihiin dhaliil baa ka dhaxayso dhaliisha ayadana waxay keenaysaa isqabad ay keenaysaa dadka marka wada dhalashadooda ay sax tahayna hadii jeer waa ku soo laabto oo dhaliisha aan ku kala haajiran weeyo intaan waa inta isla dhalatay waxaad ogtihiin annagu bulshada kale inta badan waxa way abti aysan iyo laxaw iyo hilib badan kuma lihin annaga ayaa u soo wada abti ah wax kastoona dhaxyeel intanada u soo timaaday waynu iscafinay inta maqanna waxaan fariin cod dheer aan ku leenahay dhamaantiin is wada cafiyo mar kale oo xigtana waxaan leeyahay bulshaweynta hawraarsamo baaq dheer aan u jeedinayaa walaalayaalow musharaxnimada iyo xildhibaannimada iyo campaign-ka ka horeeya dadkan wada dhasheen kadibna waa soo wada baahan yihiin nin kasta oo qabtana hawraarsanimada dadka kala daaqda mooyaana nin cod heli iyo nin maartay xildhibaan noqday dadka ma daaqo hawrsamaha ma daaqo dal iyo dibad meel kasta ay joogaan hal kursi ma daaqo yaan dadka yaan lagu kala dhiman yaan jifooyin maartay loo kala safan waxaan ugu baaqiyaa dhammaan beeshaydan ka dhashay hawraarsama dhibaato badan baa jirto annaga ehel usu wada ah aynu usu naxariisano campaign-ka yaan la isku wada cadaaweyn annagu intay xamar aan ku joogno waa is wada cafinay intiina kalena waxaan rabnaa inaad is cafisaan hadda waxa taagan rag badan oo musharaxiinta horsoo maanta taagan ilaa 5 ruux ayaa hadda lagu tilmaamaa waxaad ogaanaysaan jifooyinka kale ayagoon wax usu qabin oo cadowna aan ka dhaxayn ee 5 iyo 10 ay taagan yihiin ceeb ma ahan in kursiga dhowr ruux ay u soo tartanta ceeb ma ahan laakiin waxaad arkaysaa musharaxiinta kale hal miis ay wada fariisanayaan danta tolkooda ay ka wada shaqaynayaan waa usu khayrmiinayaan gacmaha is haystaan kuwa annagana waa usu xanaaqsan darbiyada ay ku kala jiraan musharaxiinta beesha hawrarsaman waxaan ugu baaqiyaa damaca aad leedihiin oo kursiga hawrarsamo ah ood raadinaysaan waxa weeye oo magac hawrarsamo ku raadinaysaan ha sii dhibaatayna magac hawrarsamo dadka isu soo jiida si midaysanna maartay wax u wada weydiisto oo nin kastaba dadkiisa maartay ha shukaansado waxa weeye laakiin dadkiyaan garaafo kale iyo saameyn xun lagu kala reebin wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahi raxmaani raxiim بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم dhammaan horta waxaan salaamayaa intay ka soo qayb gashay shirkan oo ku baaqay generaalada kaalmay intii soo ajiibtay ayagana aad bay u mahadsan yihiin generaalka beesha hawrarsamo isugu yeeray cafiskana weydiistay gobashii gurigiisana dhigayna aad bay u mahadsan yahay inta hadda meesha joogtay hawrarsamana kulli way cafiyeen asagana wuu wada cafiyey arrintaas arrin aad qaali u aweeye qola kasta meel kasta joogaan sida hadda jeeri sheegay in la is wada cafiyo isku quluub la noqdo isku talo la noqdo aad iyo aad bay u fiican tahay adduun iyo aakhiraba way ku fiican tahay wax kaloo hadda hawrarsamo dhex yaalla ma jirin sideeda waa la ogyahay ummadda dhanba Soomaaliyeed bana la qabto markii doorasho la galo campaign la galo qabiil kasta 10 nin ama 5 nin ama 8 nin ama 7 nin baa iska soo sharaxda dadka kale waxay naga fiican yihiin ayagoo is wada og oo gacmaha haysta bay wada tartabaan qofkii la guuleystana waa loo hambalyeeyaa gacantana la qabsadaa asagana kuwa ka guuleystay buu gacanta qabsadaa annaga waxaan moodaa inaan isku xiniya taabanayno isku bahdilayno isku aflagaadaynayno nabadoonnada iyo suldaanada lagu aflagaadaynayo xilalka ha looga qaado la leeyahay beesha ha laga saaro la leeyahay ma ahana kursigaan xildhibaanka 4 sano bes u shaqaynaya xildhibaan iyo ugaasna soo jireen weeye waana sii jiri doonaan aflagaadada dadka xilalka raadinaya dadka kaambeynarada u ah oo qabiilooyinka aflagaadaynaya oo suldaanada aflagaadaynaya hadalkooda inay gaabsadaan baa u fiican hadalkooda inay gaabsadaan oo asluub ku darsadaan yaa u fiicnaan lahayd waxaan intaa ku darayaa hadalka bandankiisa kaalmey baa yiri 5 nin baa hadda musharaxiin noo ah haddaana beesha hawrarsamo 5 nin xalar bay joogaan generaal kaalmey wuxuu yiri 5 ninba waan wacay waxa iga soo ajiibay oo shirki ka soo qayb galay Naasir Cabdikariim Muumin baa ka jira 4tii kalena way iga diideen magaaladiina joogaan
haddii musharaxiin kursiga hawrarsamo raadinayana way yihiin intay kursiga ka raadinayana waa inta meeshaan fadhida iyo in la mida haddii markuu gogashaan diido gogol kale oo maanta intuu godhigtay isagii aysan jirin oo isna wax ku codsaday ama cafis ku dalbaday xildhibaan ku dalbaday uusan jirin haddii aan la isku eedin berito ninkii intaas gogashaa soo ajiibay intaasoo hawrarsamaa dhex yimid hadda dhex fadhiya sida kaalmadu sheegay kaga qayb qaatay gogashaan oo kala qayb qaatay generaalka ayaa intaan sharaftoodii iyo libintoodii iyo karaamadoodii ninkaasaa qaatay waana ninka hadda musharaxiinta ka fadhiya waa naasir cabdilkariim raggaas kale ayaga dee iyagu waxay u diideen gogashaan anugu hadda kama hadlaayo gogol hawrarsamo oo isugu yeereen oo hadda ay dhigeen anu ma arkin kamana qaybgelin haddii meesha sida wax loo raadinayan maba fahmin midda ayada markaan dib usaa ugu noqdo marka hadalkii waxaan ku soo gaabinayaa ninka musharaxa wax raadinaya carab macaan iyo tala macaan beeshiisa wax kaga raadsado kursigaana 10 kursi ma noqonayo 5 ma noqonayo hal kursi weeye hal nin baan ku fariisanay mid khayr qaba oo barakaysan oo ummaddan hogaamiya oo isbeddelkeena 16 sano la soo martay in ilaa 16 sano in isbeddel ka keena oo waxaan arkay jireen qabto oo wax qabad beeshaan u muujiyo oo wuxuu qabtaa baan raadinaynaa Allah nagu agaajiyo midkaas Allah nagu agaajiyo 16 sano xildhibaan lahayn horena umaana lahayn magacayaga sidii loo abuuray xildhibaan ma yeelan 16 sano wax noogu qabtay malax kursi xildhibaan mid wax noogu qabtay Allah noogu dhigo maanta faataxadana mara mid karaamaysan oo khayr qaba Ilaahay noogu dhigo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh abshira Ilaahay ha ka dhigo kulanka ciwaankiisa kolley waad garanaysaan waxa weeye waa midaynta beesha hawrarsamo waay dad baa waxay u arkayaan markii hawrarsamo kulmaan in ay si kale u fasiraan oo yiraahdaan maxaa laga shirayaa maxaa waxa weeye dadkaanu maxay ka shiraan marka midnimadii dadka ka fogaato waxaan rabnaa marka ciwaanka kulankan waa midnimada beesha hawrarsamo iyo dib u heshiisiinta beesha iyo iscafis waay qofka waa inuu sidaa u qaataa meel kasta oo beesha hawrarsamo meel kasta oo aad joogtaan waa dib u heshiisiinta beesha wixii madmadow oo jirayna inay baaba'aan beeshana ay waxa weeye dib ay waxa weeye ay hadeer gacmaha isu qabsato arintaas ayada aha waxa weeye kulankan uu salkiisa ku fadhiya midda labaad waxaan aad ugu mahad celinayaa generaalka iyo naasir oo waxa weeye arintan musharax naasir cabdi muumin oo arintan waxa weeye hadee soo agaasimay kolley waxaan u bixinayaa anigu magac mideeye ayaa la yidhaahaa nimankaas waxaa weeye magacaas ayaan kolley siinayaa ilaahay khayr badan ha idin siiyo mar kastana waa inaad gogashaan oo kale aad waxaa weeye aad nagu nalo bismillaahi raxmaani raxiim waa mahadsantiin dhammaan ka soo qaybgalayaasha gogashaan sharafta badan ee uu noo soo qabanqaabiyey jenaraal aadan kaalmooy gogashaanna waxay daarahneed midnimo hawrarsame in lagu baadigoobo qof kastoo hawrarsamana way qusaysay qof iyo koox iyo qoys geesay u qusaysayna ma jirto hawrarsama isugu imaanhayay haddee generaalka siduu noo sheegayna dhammaan inta uu xamar macnaha labeynta reerka oo joogtay inuu u wada iclaamiyey oo muxuu ahaa uu yidhi ka soo qaybgala oo ay qaarna ka soo qaybgaleen qaarna diideen wuu noo sheegay oo cudurdaarteen midnimo hawrarsama wax lagu waayeyna laguma helaya shaksi iyo qolo kaligeed horta generaalka aad baan ugu mahad celinayaa in uu muxuu ahaa saldhig noo yahay oo maanta ninkii hawrarsamo ugu sarreeyey uu yahay aad baan ugu mahad celinaynaa waxaana leeyahay generaal gogashaan iyo kuwo ka badan midna ha ka daalin ani shakhsiyan markuu weydiiyey oo yidhi ma noo imaanaysaa horaan ka soo qaybgalay wax cudurdaarna ma sheeganin taas markaan halkaa ugu gudbo meel kasta oo midnimo hawrarsamo lagu sheegana cagahaygaan geynayaa aniga oo diyaar baan u ahay inaan tago habeen hadday noqoto iyo maalin hadday noqoto inaan tago diyaar baan u ahay kuwo kaleeto oo dad kale ay isku xilqaameen xitaa waa tegayaa oo tan keliya ma noqon doonto marka
arrintaasaan meesha u imid aniga shakhsiyan markaan aniga aan iska hadlana waxaan ahaa musharaxiinta hadda muxuu ahaa hunguriyeynaysa kursigaas howraarsame in ay qabtaan u taagan baan ahay sanadkii horena waa u taagnaa haddana waa u taaganahay waxaan wax ka raadinaya oo kursigaas asaga ah in aan fikirkayga aan ka gada aan rabana waa intaan iyo inta hadda naga maqan hadday isiiyaanna waa walaalahay oo igu sharfay inaan wax ku qabtana waa anaa liiga fadhiyaa oo liiga rabaa meel aanu maraba haddana diyaar uma yihi barnaamijkayga siyaasadeed oo dhammaystiran inaan hadda meeshaan golahan ka sheega ma rabo oo gogasheedii ma ahan gogashaan midnimo howraarsam aan ku raadinaynaa soomaalidana waxay tidhahdaa markay ceelalyo heshiisa ayay xoolo biyo cabbaan dadkayga oo geeda ku kala jira maanta in muxuu ahay aan aniga shakhsiyan wax iqusay aan ka hadlo taas ayada xoogaa dameer xumay keenaysaa nin uun qabri dushiis ka hadlaa noqonayaa marka hore waxaan ku dadaalaynaa inta igu fikirka ah iyo muxuu ahay inta wax garanayso inaan raadinno howraarsamo hal wadda wada socdo soomaalina waxaan ugu harnay ama maalin walbaan u calaacalaynana waxa weeye waa midnimada howraarsama la'aanteed haddii aan mid noqonno u malaynayo inaan maanta qaranka soomaaliya iyo qabaa'ilada soomaaliya aan wax ka dhex weynayn inaan ka sumcad badanna ma ahane inaan ka sumcad yaranayn ilama aha soomaalida waxay tidhahdaa reerka risaq waa ku jira rag ka soo saaray rabtaa midnimo howraarsame baan dardaarmahayaa in muxuu ahay ummaddan ay isugu timaado oo muxuu ahay la raadiyo haddii midnimo la helo dee markaas ayada cid walba geesteeda inay u dhergi doonto oo waxaan fadqalalahan iyo halkan kursigoon wada raadinayna ka badan inaan keeni karno waa u malaynayaa dowlad waxaa laga raadiyay haddii la yidhahdana dowlad waa naasa badanta oo muxuu ahaa wax walbaa laga helayaa tan kaleeta ragga aniga ila midka oo maanta hanka uu ku jiro oo gogol midnimo howraarsame loogu yeeray ee geedaha fooda ku haya ee jecel in howraarsamo geedaha ku kala jiraan wax baylahan qaataan haddee ma dhacayso oo howraarsamo maanta waa soo wada jeedaa haddii shalay waddadan lagu feelgaroobay maanta diyaara loo wadayahayo qof gabar iyo wiilba indhaha la wada taagayaa laakiin waxaan dhihi lahaa oo aan muxuu ahaa ku tusaalayn lahaa in ay fagaarayaalka noocaana aysan ka maqnaanin talada reerka wax ku yeeshaan muxuu ahaa waxa ay raadinayaan intaan iyo in kaleeto oo maqan weeye laga raadiyo hadda waxaan joognaa marka la yidhaahdo beesha meel qurbo geesaan joognaa gudihii haddaadan waxba ka qabanaynin oo meeshii uu reerka u badnaan waxba laga qabanaynin tii yareedoo meeshaan ah in lagu kala tagayaysan ka shaqaynin shakhsiyaadka diidan goglaha noocan oo kaleeta ah taas waa dadaaran tan kaleeta waxaan ilaahay ka baryaa in muxuu ahaa howraarsamo ilaahay isu soo dumo oo muxuu ahaa caqligooda xooggooda iyo xoolahoodaba wada mideeyo markaas kadib aan u malaynaya in qof kasta iyo qolo kasta oo howraarsamo ah ay geesteeda u dhergi doonto annagana ilaahay haddii uu noo garto oo aan xilkaan qabanno ilaahay kuwii ku ceweebay nagama dhigo marka saasaan idin dardaarmahayaa dhammaantiin waa idiin mahadcelinayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi bismillaah kasoo qaybgalayaasha shirkan maanta gogasha uu fidiyey jenaraal aadan kaalmoy dhaqane beesha howraarsamo amaan reer iyo intii gacanta ka siisayba dhammaan ugu horeeya xildhibaan naasir cabdikariin muumin xildhibaanka hore ee jubbaland haddana ah musharax u taagan xilka kursiga federaalka beesha howraarsamo ay ku leedahay way mahadsan yihiin waxaan sidoo kale mahad gaara u jeedinayaa odayaasha dhaqanka oo u horeeya suldaankii muqdisho iyo shabeellooyinka nuurgeel iyo garbihiisa ragga kale ee la shaqaynayay dhammaantood oo hadda uu ii muuqdo nabadoon maxamed weyrax calasow iyo jeeri ibraahim xaaji cabdilaahi iyo xuseen garweyne dhammaan waa aad bay u mahadsan yihiin waxaan sidoo kale mahad gaar u jeedinayaa cuqaasha kale ganacsatada ciidamada xoogga dhammaan dhallinyarada aqoon-yahanada ah kuwa jaamacadaha dhigtay ardayda ah beesha howraarsamo aad baad ugu mahadsantihiin gogashan muhiimaddeedu waxay ahayd hadalka aan hadlaayo waxa waaye waa khulaasadii wixii meesha looga hadlay iyo ujeeddadii guud iyo warmurtiyeedkii gogashan waxay xambaarsanayd iscafin midayn iyo walaalayn beesha howraarsamo ah
afeef gogoshan ma ahayn gogol campaign ma ahayn gogol doorasho ma ahayn gogol qolo gooni ay u wadatay waa hawraarsamo ama reer marixaansade gooshan waxa isku calool xaaranayay intooda muqdisho iyo ku nool shabeellooyinka waxaan isla qaadanay maanta in aan iswada cafinay janankana uu noo bilaabay inta kalena aan iswada cafinay inuusan madmadow jirin laga bilaabo maanta inaan nahay far iyo faraanti oo si wada jir aan u wada shaqayn doono hadduu ilaahay yidhaaha waxaan garab buuxa u nahay odayaasha dhaqanka beesha hawraarsamo meel kastoo ay joogaan kuwa banaadir iyo kuwa waaweyn ee jooga gobolka iyo meesha beesha looga talinayay waxaan garab buuxa u nahay siyaasiyiinta oo jananka iyo inta kale hadda xildoonka iyo inta xilalka haysaba dadkan waxay ka soo daaleen tafaraaruq badan waxay ka soo daaleen wax la yidhaahaa siyaasad si xun u kalluumaysi wax la yidhaahaa laba ku dhufo dhexdooda ka qaado taas ayada ana inay soo dhamaataan maanta go'aan lagu gaaray ninkii hawraarsamo wax ka rabo kii xil ka rabo hawraarsamo ama reer ninkii xil ka rabo inuu dhex yimaado maxaan ku idhahdaa bareerihiisa caddaysto intan uu gogol u dhigo uusan kala jifajifaynin uusan kala qoqobin waxaa nagu soo batay maalmahan hebel uu shaah la cabaayay hebel uu wadaa suldaan hebel uu la jiraa suldaan ninka la yidhaahaa nabadoon hebel saan uu ahaa aqoon-yahan hebel uu waday hebel uu saaxiib la yahay taa ayada amaanta way dhammaatay waxay ku dhammaatay dadkan ninkii midaynaya ninkii dan ugu jirto ninkii horumarkooda ka shaqaynaya ninkaanan kursiga qodbasire ugu raadinaynin si wadar ogol ugu raadinaya baa dan noogu jirtaa waxaan mahad labaad u celinayaa musharaxa maanta nagala joogo musharaxiintii badnaa ee beesha hawraarsamo ammaan gaar ah baan kuu soo jeedinayaa sida wanaagsaneed beesha maanta maalintii lagu baahnay aad garab istaagtay garaad jugaysta iga horreeya wuxuu yidhi kulanka midayn waa kulan midnimo raggii soo qaban qaabiyeyna mideeyaala la yidhaha marka janankana janankii janamo badan dhalo hal janan baa na dhibay janamo badan inaan helnaan rabnaa janankii janamo badan dhalo janamada mideeya allaha ka dhigo naasirna waxaan leenahay kursiga keliyaan u tartamaynaaye kursiga kuraas badan dhala allaha ka dhigo kursi madaxweyne dhala allaha ka dhigo kursi wasiiro dhala allaha ka dhigo adigana haddee maanta magacii hortay baa la bixiye midayntan aad bilowday inaad dal iyo dibad u istaagto inaad midayso kursigan hawraarsamana haddii dan ay kugu jirto oo kursigan hawraarsamo amaan reer maanta rajada kaaga jirtana haddii khayr kugu jiro oo ummadan hawraarsamo weyne iyadana uu khayr ugu jiro oo aakhiri adduun aysan kugu ahayn halaag adiga iyo qowskaaga iyo naftaadaba ilaahay ha kuu sahlo haddii shar kugu jirtana ama dadkan hawraarsamo aad geedaha ay ku jiraan kuwa ka daran aad sii gelinaysana ilaahay kuuma sahlo intaasaan kusoo gabagabaynaynaa hadduu ilaahay yidhaaha midnimaa noo ballan ah walaalaha maqan jananka uu la hadlay shaksi iyo wadarba waxaan leeyahay in kama maaranno nagu soo biira soomaalida waxay tirahaa dad xume ninkii ku yidhaah dad laa waa la yidhahaa nin aan ka maaranno ma lahan dhammaantoodaan rabnaa odayaasha gobolka waxaan farriin u diraynaa xamar waa midaysannahay khilaaf ma jira siyaasiyiinta yaroo naga maqan ayagana kolley way imaan doonaan qaar baa cudurdaar dhab ah ku maqan kuwana diidme iyo caray ku maqan yihiin dhammaan inay ayagana yimaadaanaan rajaynaynaa ama goglo kale hadduu ilaahay yidhaaho oo tan ka ballaarana isugu nimaadno farriintaas midnimaan u diraynaa gobolkii iyo suldaamadii ayagaan ku wareejinaynaa inay meeshaa ka sii wadaan hawraarsamo midaysana noo ballan ah horumar iyo waxaa noo ballan ah barwaaqa hadduu ilaahay yidhaha asalaamu calaykum